intaynaan bilaabin fadlan muuqaalka like saar channelkana subscribe saaro gambaleelkana furo. Muuqaalka koowaad aynu maanta soo qaadanayno youtuberkan lagu magacaabo Cabdullah ayaa waxa uu tagay guri aad ay dadku uga cabsadaan waxyaabo aadna looga soo wariyo. Waxa uuna kala kulmay waxyaabo aad u la yaab geliyay. الله الرحمن الرحيم. gurigan kharaabada inkastoo beri hore laga guuray laakiin waxa uu muuqdaa guri la degan yahay marka la eego waxyaabaha ka dhex socda iyo dhaqdhaqaaqa. inkastoo aanay cidna aadan arkayn ama cidna aysan joogin, waxyaabaha aad kula yaabka badan ee uu ka arkay waxaa ka mid ah marawaxad kaligeed iska socotay iyo dhaqaaqiyo aysan arkayn meel ay ka socdaan iyo albaabo kaligood lasoo riixayo iyaga oo aanay jirin dabayl aad u baan. يا حد تبغى اطلع لكم فوق؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. youtuberkan carabka waxa uu soo wajahday cabsi aad u ba'an marka uu arkay albaabo kaligood isriixaya iyo waxyaabo aan macquul ahayn inay ka jiraan guri aysan cidna ay ku noolayn. waxyaabo aad u la yaabgeliyay oo badan ayaa uuna ku arkay. inkasta oo cabsi aad u badan ay haysay laakiin baaritaan dheeri ah ayaa uu sii sameeyey. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة. بسم الله بسم الله. waxaa mar kaliya indhihiisa ay isku dhaceen jismi aad u qariib ah oo ka nixiyay oo soo eegaya dhinaciisa oo indho cadcad leh oo madow. laakiin markii uu ka dabagalay ama uu sii baadhay waa uu waayay dhinac kastana waa uu ka raadiyay. taasina cabsi aad u badan ayaa ay kusii beertay. waxyaabaha aad kula yaabka badan ee ninkani arkay muuqaalkan laguma soo koobi karo. waxaad kasoo baadhi kartaan janaalkiisa. muuqaalka nooxiga youtuberkan iyo saaxiibkii ayaa waxa ay tageen dhisme beri hore laga guuray. dhismahan oo dadku aad u buunbuuniyaan waxyaabo badanna ay uga sheegaan, waxayna kala kulmeen wax aad u la yaab geliyay isaga iyo saaxiibkii. iyaga oo wada duubista muuqaalka ayaa mar keliyata waxay indhihiisu ku dhaceen wax soo eegaya oo la moodo bini aadam ama qof balse aan ahayn. gidaar dabadiina ka soo eegay aad buu naxay una qayliyay saaxiibkii. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
有人，操你妈，有人！出来！有啊，真有人！哎呦我操我！你们过去，我怎么不敢去？出来！haddii aynu ka hadalno xaqiiqo ama fake inuu yahay waxaan falcelintiisa ama reactionkiisa sida uu uga falceliyay marka la eego waxay u eg tahay inay xaqiiqo tahay ama dhab ay ka tahay sida uu naxay ama uga falceliyay ama u qayliyay marka aynu eegno dadka qaar ayaa waxay yidhaahdeen waxaan waa qof bini aadam ah oo meesha ku nool laakiin dadka qaar ayaa iyaguna waxay yidhaahdeen waa ghostis haddaba waxaad ka baadhi kartaan janaalkiisa